kulan wacan u wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Bowlas Media wararka aan maanta idinku hayno qodobadiisana waxaa ka mid ah dowladda Sacuudiga oo u yeertay Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka shacab careysan oo maanta banaanbax xoogan ka dhigay Muqdisho madaxweyne Erdogan oo soo farageliyay dagaalka ka taagan gobolka Tigray daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay dhigayaan dadweynaha ka careysan dadkii ay ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ku laayeen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaraha taalada daljirka Daason oo ku yaala degmada Boondere waxayna wateen boorar lagu soo xardhay ereyo ka dhan ah ciidamada AMISOM sida dil gardaro ah dooni mayno xasuuq dooni mayno iyo ereyo kale sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa cambareen xoogan u jeediyay AMISOM oo dalka u joogta howlgallo nabadeed waxayna ku eedeeyeen inay dishay shacab badan مسؤولين كتيرسن maamulka gobolka Banaadir sida gudoomiyaha degmada Boondere Seenab Yuusuf Wehliye ayaa ka qayb gashay dibadbaxyo waxayna dadka ugu baaqday inay isdajiyaan isla markaana ay si degan ku raadiyaan cadaaladda dhanka kale Shamsa Yabro oo banaanbaxa ka hadasha ayaa iyaduna tiri annaga in AMISOM ay naleeyso xaq uma lihin mana doonayno in annaga Soomaali ah oo dalkeena joogna inay naleeyso horta taasi waa khalad qaar ka mid ah dadka dhigayay dibadbaxyaasha sidoo kalena dowladda Soomaaliya ka dalbaday inay arintani soo farageliso ayna wax ka qabato dilwadareedka loo geystay dadkii shacabka ahaa ee lagu laayay deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose dibadbaxa maanta ka dhacay Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Uganda uu ka hadlay dhacdadan uu qiray in ciidamadiisa ay dad shacab ah ku dileen Soomaaliya isla markaana la xiray askartii ka dambeysay falkaasi misna maxkamadda la geyn doono Yuri Museveni ayaa sidoo kale sheegay in magdhow ay siinayaan eheladii dadkii ay ciidamadaasi dilka uga gudaha Soomaaliya dhacdadan ayaa timid kadib qarax ciidamada Uganda lagula eegtay Golweyn iyagoo kadib toogasho ku dilay 7 qof oo shacab ah oo ku sugnaa deegaanka weerarka ka dhacay boqortooyada Sacuudiga Carabiga ayaa casuumaad rasmi ah u fidisay golaha wadatashiga qaranka gaar ahaan wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka sida ay shaaciyeen ilwareedyo lagu kalsoon yahay wararka ayaa sheegay in maalmaha soo aadan Roble iyo shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka ay tagi doonaan magaalada Riyadh ee caasimadda wadanka boqortooyada Sacuudiga Carabiga halkaas oo ay wada hadallo kula galayaan madaxda sare ee dalkaasi wararka qaar ayaa sheegay socdaalka waftiga culus ayaa salka ku haya arrimo la xiriira xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Sacuudiga oo hooseeyay sanadihii dambe Roble ayaa haatan ku maqan dalka Masar halka madaxda maamul goboleedyada ay ku soo wajahan magaalada Muqdisho oo ay uga qayb galayaan shir ku saabsan doorashooyinka dalka walow maanta dib u dhac ku yimid shirkaasi safarka ayaa soo shaacbay xilli xasaasi ah isla markaana xukuumadda xilgaarsiinta ay ku howlaneed arrimaha doorashooyinka iyo xoojinta xiriirka dibadda waxayna wafti ka socday xukuumadda uu horkacay wasaare Roble ay booqasho ku kala tageen Nairobi iyo Cairo Sacuudiga ayaa la sheegay inuu qorshe weyn ka damacsan yahay casuumadda Roble iyo madaxda maamul goboleedyada maadaama doorasho la galayo waxaana tani oo kale ay dhacday sanadkii 2016 kadib markii dowladda Imaaraadka Carabta ay casuumaad wadajir ah u sameysay madaxdii maamul goboleedyada xilligaasi waxayna kala hadashay arrimaha doorashooyinka ee markaasi iyo sidoo kale in isbedel laga sameeyo doorashada 2017 si kastaba warkan oo ilaa haatan aysan ka hadlin dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa hadal hayn badan ka dhaliyay baraha bulshada maadaama uu soo aaday xilli xasaasi ah oo Soomaaliya ay haatan ku jirto xaalad adag oo kala guur ah madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii yabahay inuu gacan ka geysan doono inuu dhaxdhaxaadiyo sidii loo soo gabagabeyn lahaa dagaalka gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya Erdogan ayaa sheegay in wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu booqasho ku tagay Ankara inay muhiim u tahay nabadda iyo sharafta dalka inay haddii ay xaaladda sii xumaato waxay saameynaysaa dhammaan dalalka gobolka ayuu Erdogan ku yiri shir jaraa'id oo ay wada qabteen Abiy Ahmed Turki ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wax kasta oo aan awoodno ku tabarno xal u helidda dhibaatada oo ay qayb ka tahay dhaxdhaxaadinta ayuu yiri Erdogan Ankara iyo Addis Ababa ayaa la xiriir saaxiibtino waxaana labada hogaamiye ay wacd ku mareen inay xoojiyaan iskaashiga dhaqaale iyo ganacsiga Abiy ayaa sheegay in xiriirka labada dal lagu dhisay isqadarin iyo is-aaminaad hase yeeshee labada dal kuma aysan dhabaaqin wax heshiis oo gaar ah oo ay gaareen intii lagu guday
guda jiray booqashadii Abiy iyo Ankara. Abiy Ahmed ayaa toddobaadyadii dhawaa wajahayo cadaadis xoogan kadib markii ciidamada Tigreega ee TPLF ay dib ula wareegeen gobolka sidoo kalena ku sii siqeen gobolada kale ee deriska la ah. Daawadayaal ayaan ku soo afmeeraya war wixii dal iyo dibadda aan kaga haanay. Waxaan idin akhrinay anigoo Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhare. intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah.